dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo biyo-xireenka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mashruuca ayaa isugu jira dayactirka jiinka iyo kanaalada webiga si loo yareeyo khatarta fatahaadaha magaalada Beledweyne oo ku sameeyo webiga Shabeelle iyo beeralayda ku xeeran. saxiixa heshiiskani oo goobjoog ka ah Siyaha Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxaa dowladda Soomaaliya u saxiixay Siyaha Wasiirka Beeraha Siciid Xuseen Ciid, halka dowladda Talyaaniga u saxiixay safiirka Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya iyo madaxa hay'adda horumarinta Talyaaniga. Mashruucan oo maalgelinayso dowladda Talyaaniga ayaa waxaa ku baxaya 6 milyan oo euro, waxaana ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah dhismaha biyo-xireenada, dayactirka kanaalada iyo tayeynta hay'adaha qaabilsan xakamaynta fatahaadaha. sida uu sheegay safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya. This program represents, in fact, the first one aiming to solve the recurrent flooding of the Shabelle River. barnaamijkan wuxuu xal u helayaa fatahaadda soo laalaabatay ee webiga Shabeelle dhanka Beledweyne oo u geysanayo khasaare baaxad weyn oo isugu jira dhimasho, dalagyada oo baabaa, burbur dhaqaale iyo barakac kumanaan ruux. waxaan xasuustaa sanad ka hor wax yar kadib markii aan ibin Muqdisho sida ay u adkeed xaaladda gobolkaas Soomaaliya kamida. Siyaha Wasiirka Beeraha Siciid Xuseen Ciid ayaa xusay in mashruucan uu yahay mid ahmiyad weyn u leh deegaanada uu maro webiga Shabeelle oo uu fatahaad khasaarooyin badan geysto ka sameeyo xilli roobaadka. sanadkii hore ayay ahayd in la shaqo bilaabo, laakiin dib u dhac yimid awgeed oo ka yimid xagga wadankaas ayaa dib loogu dhigay, ayuu dib ugu dhacay. waxaa maanta halkan ku saxiixi doonaa mashruucaas oo ka kooban 6 milyan oo euro oo xoogeeda la gelin doono fatahaadda Beledweyne. qayb ka mid ah la gelin doono beeralayda Shabeellada Dhexe iyo Hirshabeelle sida ay ugu adkeysan lahaayeen dhibaatada uu keeno fatahaaddu keento. ugu adkeysi loogu sameyn lahaa ayuu ka shaqeyn doonaa mashruucaani. wuxuu dayactiri doonaa kanaalo gaaraya 36 kilomitir ayaa ku jirta in la dayactiro. waxaa ku jirta in la dayactiro webiga meelaha uu ka dilaacsan yahay fatahaaddu ka keeno oo dhan la dayactiro. waxaa ku jirta in dadka beeralayda ah dhulkaas uu ku fatahay ku nool dhibaatada ka soo gaadhay in laga kaalmeeyo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.